بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الملك سوجوكتان كسر دواد أخبارات قدام بيه عالمك وذكر سعتان وبينت عالمي 24 أنا علي رشق محمد أن دين تبين دونا والمهن هذا نذكر مشغول داود يالو ذكر اللي قلنا يا أدين كن دير قلنا تمام بديا ويوتيوب كسبسكرايب نوصار ميل وناكسن أن قارني أخبارات كمان تنسوق هذا دونا وحين قونيان حالة قدام بيه فلسطين تقيمي إسرائيل كي مريان دقالة الأولى هاو قصي كوكا شيء حال كود واسده داود يقول بدأ سيان دقالة صوص هذا إذن تتابعون دونا مركز سود وهذا يوتيوب كا سبسكرايب نوصار فيديو ونوشر بريه وركو قدام بيه كمان مقالة غزة يا شيخ يعني قاعدة حماس وربحنا يسوس أرتدي وانا يكوش عيسي إن عندما إسرائيل تنجده ده يجبهان كبحين مقالة غزة إن كسر إسرائيل الشيخان يسوي لي كده دقالة ما يسمى مقالة غزة دقال حقنا وكسر إسرائيل يودح حماس haddana waxay sheeganayaan Xamaas in taangiyada Israa'iil ay ku qasbeen kadib dagaal xoogan oo la galeen in magaalada ay banaanka uga baxaan sidoo kale waxaa sii soconaya duqeymaha arxandarada Israa'iil ay geysanayso kuna garaacay saxaafadaha magaalada Gaza dadka shacabka faraha badan dhimashadii ka soo gaarayso waxa wali sii soconaya dadka faraha badan ee geeriyoonaya iyo kuwa wali aan haysan biyo iyo raashin ay cunaan ee magaaladaas ku sugan gargaarkii la gaarsiinaya wali ka go'an oo wali aan gaarin magaaladaas Gaza ayadoo si tartiib ah maalmo markii la joogaba loo soo gelin dhowr baabuur oo aan ku filnayn dadka magaalada ku nool magaaladu waa dhul aad u ballaaran oo magaalada ku wada fadhiso inta badan Israa'iil waxay ku baabiisay duqeyn aad u xooggan habeenkii ay soo galeysay weerarkan ku qaysay Gaza laga soo bilaabo duqeymaha ku socday ilaa 7 bishan waxay ka dhigaan magaalada in badan oo kamid aad u burbursan dadkuna ay ku noolaan karin waxaana hadda la sheegay biyihii magaalada inay ka wada go'een dadka magaalada Gaza ay ku qasbanaadeen inay cabaan biyaha badda taasoo muujinaysa xaaladda quusta ee dadka magaalada Gaza ay ku sugan yihiin sidoo kale daawadayaal xaaladaha u adag ee ka jira magaalada Gaza waxaa ka mid ah in dhimashada ay sii korortay 10,000 oo qofoodna dadku ay ku sii dhow yihiin geeriyooday halka 25 ku dadku dhowna ay dhaawac marayaan dadka geeriyooday waxaa la sheegay inay ku jiraan dad 3,100 iyo dhowr qofood ka badan oo caruur ah sidoo kale waxaa la sheegay in 1,000 qofood oo caruur wali ay maqan yihiin dadka dhismayaasha burbura ku hoos jiraan ay ka mid yihiin 6,000 dadka badan oo caruur ayaa dhaawacyada ka mid ah waxaana muuqanaya inaan wax damqasho caruurta da'da yar ee dhimanaya iyo haweenka birmageydada aan loo muujinayn ilaa hadda duqeymaha socda waxaa la sheegay in 47 masjid oo ka mid ah masaajidii ku yaala magaalada Gaza Israa'iil burburisay sidoo kale tana waxyeelo xoogan ay soo gaarisay 7 kaniisadood maanta golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay yeelanayaan kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda magaalada Gaza asaate horumar badan Falastiiniyiin ma filayaan maadaama Mareykanka looga bartay haddii la soo hadal qaadin xabadda la joojiyo ama wax u danaynay Falastiiniyiinta inuu codka fiitooga la hor istaago kulanka golaha ammaanka qaramada midoobay waa laga dhur sugayaa waxa ka soo bixi doona sax looma oga warka ugu dambeeyay hadda Gaza ka soo baxay warka sheegaya in ciidamada Israa'iil ay gudahaan isaga baxeen sidoo kale kooxda Islaamiga Jihaad ayaa sheegatay 2 sarkaal oo kamid ah ciidamadooda gaar ahaan garabka military ee Al-Quds loo yaqaan inay ku geeriyoodeen xadka Lubnaan taasoo muujinaysa in kooxaha iska caabinta Falastiiniyiintu ay dhinacyo badan kaga dagaalamay karaan Israa'iil walaa xoogan sidoo kale waxaa laga muujinayaa isbitaalka Al-Quds ee ku yaala Gaza oo Israa'iil ay hareerihiisa duqeyn xoogan ku hayso sidoo kale tan ay ku baaqdeen isbitaalkaasi waxa ku jira laga saaro ay burburin doonto marka ugu dambeeyay magaalada Gaza wali waxa sii muuqanaysa cakirnaanta halkaasi ka jirta wadamada islaamka badankooda wali waxay ku eegeen cambaaraynta halka reer galbeedku ay si xoogan muujinayaan garab istaag ay u hayaan Israa'iiliyiinta daawadayaal qodobkeeni koobnaan uga hadlayna Gaza halkaas ayaan ku soo meerina maalmaha soo socda iyo daqiiqadaha soo socdana akhbaaraad kale oo update ah ayaan insha Allah idin soo gudbin doonaa mar kale soo dhawaada fiidiyowga noo share gareeya YouTube-ka subscribe noo saara mahadsanidin